nabadoono waxgarad ganacsato iyo culimada mid ka mid ah beelaha Puntland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay degmada Baargaal ee gobolka Raas Caseer ayaa cabasho xoogan ka muujiyay hay'adaha garsoorka Puntland. Cabashada ayaa si gaar ah u taabanaysay maxkamadda sare ee Puntland iyo taliyaha ciidanka asluubta dowladda Puntland Sareeyo Guuto Saxardiid Maxamed Axmed. Odayaashii waxgaradka ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inuu si degdeg ah usoo fargeliyay arrinkan waxna uga qabto ku tigrifalka iyo cadaalad darrada ka jirta meelihii cadaaladda loo soo raadsan jiray. waxaan ka cabanaynaa waxaan ku duubaynaa cabatin aan ka cabanayno ilaha garsoor waan cabatigeeda gaarsiinayno madaxweynaha dowladda Puntland. madaxweyne waxaanu cabati ka nahay hay'adaha garsoorka Puntland, khaasatan waxaanu cabati ka nahay maxkamadda sare iyo taliyaha guud ee asluubta Puntland. waxaanu cabati uga nahay nin la yiraahdo Maxamuud Waabiri Yuusuf, waa nin la yiraahdo Nuurudiin Cabdi Cali, wuxuu ka turufeeyay lacag turufaa oo khiyaamaha ka qaatay lacagtaas oo dhan $187,000. dacwado badan baa la soo maray maxkamadda darajada koowaad baa la soo maray, darajada koowaad waa wax xukuntay, darajada labaad baa la soo galay, darajada labaadna waa xukuntay. ninka gaar shiraha la geeyay waxa la yiri waxa lagu xukumay maadaama turufadaas iyo 2 sano lagu xukumay iyo lacagtaas uu bixiyo jeelka ugu jiray. haddii aanu jeelka ninkaas jeelka ku jiray, ninkii jeelkii waa laga saaray, garow waa la geeyay, si khiyaama ba garow loo geeyay. rag baana ka shaqeeyay, waxaana mas'uuliyadda iska lahaa taliyaha guud ee asluubta ninka la yiraahdo Saxardiid. arrintaa waxaa iska kaashaday ninka waa la sii daayay, waxaana sii daayay taliyaha guud ee asluubta Saxardiid iyo maxkamadda sare oo qoraal samaysay. waxaanu madaxweyne marka cabati ka nahay arrintaas. waa dulmi, waa cadaalad xumo, waa waxaan la qaadan karin, waa wax dhib dami keeni ka dhah. madaxweyne dalka adiga mas'uulka ah, cid kasta oo dulmi loogu geysto Puntland anta adiga madaxweynaha adduun iyo aakhiraba adiga dusha tahay. raggaas waa ragga adigu u magacowday garsoorka, adiga laga rabaa ilaalinteedii iyo kadabatageedii iyo garsoorkeeda adiga laga rabaa inaad ninkaas soo iyo xisaabta nimankaas. in haddii maxkamadaha waxaa loo tagayaa in lagu kala garbaxo, lagu kala xaq baxo, lagu kala ammaan helo. haddii intaa la waayo dee waxaa ma jiraan wey, marka madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa nimanka aanu ka cabanay oo Saxardiid iyo cidda la shaqeynaysay oo asluubta kala shaqeynaysay oo arrintaas ku lahayd iyo maxkamadda sare oo warqadda qortay sida loo sheegay. waxaanu doonaynaa ninka inay ku soo ceshaaneen meeshooda. haddii ay ku soo celinayna dee lacagtayadii iyaga lacagtii ninkaa ka maqan oo aan ninkaas ka maqan waxa weeye iyaga mas'uuliyaddeeda alqaadaya oo iyaga iskale lacagta inay keenaan. saas baanu kaa doonaynaa madaxweyne, cadaaladdaasaan kaa codsanaynaa. haddii dalka adiga madaxweyne u ah, meel ka sarreyso salaxa ma jiro. raggaas waa raggii aad bulshada u magacowday inay u garsooraanin oo dadka xaqooda kala siiyaanin. oo jeelku waxa weeye jeelkii amniga cid kastoo dembi gasha ama cid disha ama dhacda lagu hanjiro lagu xusaayay iyadoo aan cidna lagala tashan oo ninkii la ogeysiin oo waxba aan la ogeysin. ninkii lacagta ku lahaa soo wax rabo maxkamadaas xukumeen inta boos la qaad garow laga shiday. madaxweyne waxaan codsanaynaa dacwadayaashu haddii ku soo gaarto inaad si degdeg ah wax uga qabato nimankaasna aad u yeerto kala xisaabtanto. ninkii haddii ay soo qabtaan oo jeelkooda ku soo ceshaaneen falak alxamdu. haddii kale waxaan rabnaa xisaabtankeedii madaxweyne hawshaas adiga ku sugaysaa. adigaanu kaaga fadhinaa, adigaa madaxweyne dalka, adigaa raggaan adaa magacaabay, garsoorka adaa u magacaabay, maxkamadaha in dad ku kala xaq baxaanin oo dee ragga mas-uuliyaanta adigaa u magacaabay. waxaanu doonaynaa madaxweyne inaad raggaas cabadkaasaan nahay inaad arrintaa wax qabato. doonada dambe intaasaan kusoo gabagabinayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi. bismillaahi raxmaani raxiim. anagoo ah beesha aadan cabdiraxmaan oo degan magaalada Baargaal, waxaanu cabatin u jeedinaynaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. cabatinkaas oo ah nin lacag ninkan
$187 oo $1,000 maxkamadda sare iyo maxkamadda tan hoose iyo tan sareba xukumeen jeelka ku jiray waxaa lagala baxay jeelka Boqaasood baa laga qaaday Garow waa la geeyey haddii la geeyey waxaanu maqalay ninkii caafimaad baa loo qaaday haddii waa kaaso waxaanu maqalay in la sii daayey oo asluubta ninka madaxda ka ah aydiid baa la yidhahdaa baan u malaynayaa baa la yidhi saxardiid iyo ninka la yidhaahdo guddoomiyaha maxkamadda warqad qoray nimankaasaa sii daayey hantidaasaa naga maqan hantidaas hadday naga maqan tahay ninkii qabay baa xiraa waana la sii daayey cadaaladana waxaa loo sameeyey in lagu kala baxo oo wixii la isku leeyaha la kala helo xataa isagoo xiran qabiilada isu yimaadaan wixii laga xaajoodo sidii loo heli lahaa loo helo ninkaa tagrifal baa ka dhacay oo nimankaasaa tagrifalay ninkii waa sii daayeen waana raggii adigu meesha geysay oo garsoorka iyo asluubta u magacowday dee waxaanu doonaynaa cadaalad darradaas caynkaasa baanu ka cabanaynaa adaanu kugu cabanaynaa madax meelka sareyso la taabtaa ma jirto adaa dadka u madaxweynaa adaa mas-uulka weynaaya wixii tagrifalah adduunka waa lagu weydiinaya waxaanu doonaynaa in hawshaa wax ka qabato nimankaa mas-uuliyiinta ninkaa in lagu soo celiyo booskiisii oo ninkaa dulmanaha oo xaqaasu ka maqan yahay uu xaqiisi helo xaqiisii inuu helo baa la doonayaa in haddee maxkamadda iyo asluubta iyo dawladda meesheeda in cadaalad xumo ka dhacdo laysku dhaco aad baan ugu cabanaynaa adaanuna kugu cabanaynaa arrintaasna waxaan adaanu kaa sugaynaa jawaabteeda waxaan rabnaa sidaad wax ugu qaban lahayd adaanu kaa sugaynaa waana mahadsantaha madaxweyne الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم odayaashii nabadoonada hadlay waxaanu daba soconnaa ninkii la oran jiray maxamed waaberi xabatinkiisii madaxweyne warkuna adoo kugu socdaa warkii aad kore kuu soo gaaray oo ninkaa cabanaya oo hantidiisaba dhacay laguna dhacay meeshii sharciga oo laa oo ummaddu ku kala dambayn jirtay bale ma dhicin Puntland kama dhicin qof hanti qaba oo aan qabiila ka heshiin oo aan lagu heshiin oo dadka gacanta lagu saaran in la sii daayo nin $100 oo kun oo dollar lacag ku dhow qaba in la sii daayo wali Puntland madaxweyne kama dhicin dad kumanaal dollar qaba ku xiran meesha la yiraahdo waxay ku xiran yihiin jeelasha waxaas wax wali ka dhacay ma aha waxaanu filaynay oo dadku filayeen ama shacabku filayeen waxay ahayd nin walba in hantidiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa ay dawladdu mas'uul ka tahay sharcigaas u ilaalinayo laakiin hadda waxay u muuqataa meesha ay noqotay ama raka dhigeen meel bahla galeena oo aan la isku aamini doonin dawladdu iyada ummadda ka ah qofka amnigiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisa iyo cirdigiisa inta dawladdu iyada ilaalisa sharci bayna ku ilaalisaa sharciga waxaa madaxweyne u muuqdaa mid dad lugta ku walaaqaya